رمضان 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 كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. idilkiinba kulan wacan wanaagsan dhammaan bay khiyaarta naga daawanaysa baraha Facebook, YouTube, nagana dhageysanaysa barta cod iyo caqli ee SoundCloud. Maanta waxaan si kooban uga hadli doonaa laba qaybood oo kamid ah book uu qoray qoraalada Dr. Chapman oo ku sugan dalka Mareykanka. Bookgan oo magaciisa la The 5 Love Languages ama shanta luqadood jacaylka. Waxaan ka hadli doonaa labada qaybood oo ka horeeya. Si guud hadaan bookgan idinka siiyo information qoraagu wuxuu PhD-diisa ka diyaariyay qaybta psychology-ga iyo culuumta maskaxda ama psychology-ga loo yaqaano dadka maskaxda la talintooda. sidoo kale waxa uu bookgan waday muddo dhowr sano ah sidoo isagu sheegay wana book research ah isla mar ahaantaasina baaritaan badan qaatay cilmi baaris ku sameeyay. bookgan wuxuu ka kooban yahay 14 chapter iyo xigashooyinkii uu soo xigtay qaar xusuus qor iyo ku jiro. chapter kasta wuxuu ka hadlayaa qayb gaar ah. chapterka afraad buu ka bilaabmayaa ereyga koowaad ama luqadda koowaad ee jacaylka. haddii si toos ah u guda galno qaybta koowaad wuxuu soo qaadanayaa qoraagu weeraha qaaliga ah ama erayo qofka ku qaaliya information words buu isagu uga dhigayaa ciwaan. erayadaas waxay noqon karaan kuwa inagu adeegsano ama labada qof ee sheekaysanaya adeegsadaan shukaansigu ka dhaxeeyo ama haasaabo hadba soo taqaanaan ama ay adeegsadaan lamaanaha isqaba ama ay adeegsadaan dadka walaalaha ama asxaabta qudhooda adeegsadaan. laakiin muhiimaddu waxa weeye eraygaas inuu qofkan ku jira luqadaas ku dhaqma ama isticmaala oo eraygan isaga dareen u leeyahay. markaan leenahay shanta luqadood jacaylka ma aha in jacaylka la sheegaaba uu shantaas yahay, laakiin shantani waxay ka qayb qaataan dareenka ama xoojinta dareenka jacayl sida ay luqaduhu uga qayb qaataan isfahanka bilaadanka. tusaale ahaan qof markuu Soomaaliya ku hadlayo waxa fahantinta Soomaaliya ku hadasha. marka luqadu ma aha qofkii mana aha jiritaankii qofku wixii lagu qeexayay, laakiin waa qayb ka mid ah isfahanka bulshada waxaana fududeynaysa qofka in la fahmo. haddii aan ku sii socono erayadaasi qoraagu wuxuu soo qaadanaya cilmi baaris dhowr ah uu ku sameeyay lamaane isqaba iyo lamaane kale tagay labadaba. waxa uu sheegayaa mid ka mid ah lamaanahaasi in isaga oo inta badan aad u xiisayn jiray in lamaanaha dhigiisa ay isqabaan. dhigiisa markaan la yacni ay nolosha wadaagaan uu adeegsado ama uu isaga u isticmaalo erayo agtiisa dhadhan kale ama sida qaali oo kale ma ku jecelahay oo kale erayo qofka dareen isaga u sameeya. waxay gabadhaas sheegaysaa in uu subaxii kale markuu ka sii baxay si faaleen jiray quruxdeedu oran jiray dumar inta nool badan ugu qurux badan cid ka qurux badan ma jirto iyo wax la mid ah. haddana galabtan soo mararka qaar ku oran jiray ubax aan maanta suuqa ku arkay oo lahaa uu qurux badan yahay adiga xataa ka qurux badnaa iyo habeenkii inta ay wada joogaan iyo wax la mid ah. marka ereygaasi ama luqadaas koowaad ma aha qofku mid daneeya dareenada kale ama taabashada ha noqoto ama ha noqoto dhunkashada ha noqoto ama ha noqoto galmada labada qof ee isqaba ka dhaxaysa ha noqoto lamaanaha ama ha noqoto dalxiiska wixii doonto ha noqoto whatever ma aha qof daneeya, laakiin waa qof kaliya xiiseeya oo maalinta uu ugu wanaagsan yahay ugu farxad badan waa maalinta uu qofka ka helay erayada uu doonayo. waana erayadaasi qoraagu wuxuu ku sheegay inay xoojiyaan jacaylka ka dhaxeeya lamaanaha isla mar ahaantaasina ay salka guriga ama dhismaha qoyska si adkeeyaan oo tiir u noqdaan. talooyin buu ku darayaa ay ka mid yihiin in qof kasta uu ogaado qofka kale dareenkiisa. sidoo kale waxa uu sheegay qoraagu in haddii aad adigu jeceshahay tusaale ahaan erayada in lagu dhaxdo aanay qasab ahayn lamaanaha ku jecel yahay isla erayadaasi, laakiin laga yaabo isagoo luqad kale isticmaalo oo ama qayb kale wax ku fahmo. qoraagu sidoo kale aad buu faahfaahinayaa chapter dhan buu ka hadlayaa qaybtan. waxa kale oo uu ku darayaa in labada qof haddii mid ka mid uu jecel yahay luqadani uu ka kale ku ixtiraamo oo uu ku dadaalo sidii uu wax qabtiri lahaa baahidaas si aanu cid kale ugu raadsan ama aanu meel kale ka daydayin ama aanu ugu yaraan guriga oo burburin oo dhismaha qoyskoodu aanu khatar u gelin. qaybta labaad haddii uu gudubno qaybta labaad qoraagu wuxuu ku sheegayaa quality time ama waqti tayo la wada qaato. waqtiga tayada wax kale ma aha labada qof in ay waqti barasho fiican ah wada qaataan
tusaale ahaan lamaanuhu markay isqabaan waxaa jirta oo aan dhab ahaantiina aad ula yaabay uu qoraagu chapterka kood ku sheegayaa jacaylka guurka kadib ama waxa dhaca guurka kadib oo jacayl ku saabsan ka qayb kale ka diyaarin doona hadii Allah wada la ogolaado laakiin qoraagu waxa uu soo qaadanayaa in inta badan dadku marka ay sameeyaan dhismaha guriga ay ku guuleystaan aanay sidan in qofka kale inay waqti la qaataan isla mar ahaantaasina tixgeliyaan oo ay qofkan u tixgeliyaan aragtidiisa ama luqadiisa jacaylku wax ku fahmayo Soomaaliduna saan filaya waa ka qayb oo waxay rag u isticmaalaan dumarna been baa lagu soo xirageliyaa rugna been baa lagu soo xirageliyaa rugna lagu dhaqa laakiin inta badan bilaadanku ama dadka ragga Soomaalida ma dareensana qofkan inuu yahay qof dareen leh sidiisa Ilaahay abuuray tacab iyo waqti galay oo qofkan la soo barbaariyo nolol soo maray ama uu isagu iskooriyay uu waqti soo qaatay oo uu yahay qof dareemi waxa dareemayso oo kale qof u nool sida aad u nooshahay kale qof doonaya waxa aad doonayso marka taasi waxay keentay in dad badan ama qoysas badan ay ku burburaan marka la iskuursado kadib ay yiraahdaan waxaan waayay wixii aan hore ugu aqaanay ama dabeecadiisu bedelay hadii la wada ogolaa muuqaal dambaan ka sameyn doona xilli ay noqoto insha Allah laakiin qoraagu qaybta labaad quality wuxuu ku sheegayaa 3 daqiiqo ilaa ka yeelay waqti taylad lamaanaha wada qaadataan oo isfahantaan oo mid kale uga sheekay khibradiisa aqooneed tayada waxbarashada soo bartay waqtigu soo noolaa wixii la kulmay sinu ogsoonay dadka shukaansi ka dhaxay waqtiyada qaar waxay sameeyaan inay isfahansiiyaan ama ay waqti wada qaataan oo ay sheekaystaan laakiin waxa jira waxyaalo badan oo aan inta badan laga wada hadal ama lagu dhiirin laga wada hadlo laakiin marka labada qof isku ursadaan waxa daruuriya in qof kasta oo qof kale xaqiiqada u sheego waqti taylana wada qaato qoraagu wuxuu ku talinayaa isaguna uu soo xiganaya in gabadhiisa ugu yaraan 15 daqiiqo la qaato habeen kasta si ay isu fahmaan oo dabeecadoodu si dhisnaato maadaama oo isagu uu ogaaday inay gabadhiisu jeceshahay quality time waxa loo yaqaan ama luqadda loo yaqaan waqti tayo la wada qaato sidoo kalena qoraagu waxa uu ku darayaa in marka qofka aad waqtiga la qaadanayso in aad iska xidho dhammaan waxyaalaha ku mashquulinaya telefoon ha noqoto television aad daawanayso buug aad akhrisanaysay cid aad wada hadlayseen iyo wixii la mid ah marka qoraagu qaybta wuxuu ku darayaa talooyin badan ka mid tahay in sidii qaybta hore ku soo labada qof isku tixgeliyaan dareenadooda in qof kasta qof kale barto luqadda uu jecel yahay iyo sidoo kale in waqti tayo la wada qaato oo qoraagu ku doodayo in badan oo 70% qiyaastayda ah laakiin isagu uu gaarsiinayo 100% in qoyskaasi si dhisnaan karo hadii ay labada qof fahmaan midka kale luqadiisu waxay tahay oo ay suurto gasho in labada qof ay isku si fahmaan oo midka kale oo ilaaliyo luqadiisa ama quality time noqoto ama words affirmation ha noqoto qaybtan koowaad hadii Allah wada la ogolaado intaas ku soo khatimi doona tan inta isugu iman doono qaybta xiga waxaan doonayaa ogeysiis kooban in raaciyo bartasan kalaabka cod iyo aqli oo ka heli kartaan barnaamijkan iyo barnaamijka kale hadii la wada la ogolaado tan inta isugu imanayno barnaamijka xiga ani khiyaartii kala qayb qaadatay waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgeliyo hawaara jacayl السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إدل كيم بكل وعن أو نكسن لما بأخيار تنقد دعوانيسا يوتيوب فيسبوك نجنا دقيسنيسا برتعد يعقلي ما أنت وحين سكوبان وجهاد لدون هدي الله هو دليل هو قرادو والله بقي بود كسوق عندنا بوك وقرا له هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيدل رمضان 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 كريم